السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو واقت رقالي هالكاد إيقالا سوعطان وإيقا داوانيسانا وقلبي وناك official. فضلا جنالكي قدوكو عصبتا سبسكراب إيسار جنبالال كنفرو سي wax walba oo aan soo dhigay ay kuugu soo dhacaan oo ila socotid like ida commentina iga bixi ina share garay please lacag ma gadna intaas okay caaw maxaa idin hayaa codkeygana xoogaa duu iska hooseeyo igu qaata kaamirada haday qaldan tahay igu qaata ma fahanteen marka caaw waxaa idin hayaa true story sheeko dhab ah oo dhacday oo ani aan goobjoog u ahay idin hayaa waxaa idin hayaa qiso wiil iyo gabar aan saaxiibanahay ku dhacday sheekadooda oo qiso jaceyl ah sheekadana waxaa la yiraahdaa jaceylkii fashilmay qayb aan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa sheeko dheer marka waxayna ku bilaabanaysaa sida tan gabar iyo wiil isbartay gabadha saaxiibtay ay ahayd iyo wiil isbartay wiilkii gabadhi muddo markay wada socdeen ee sheekeysanayeen gabadha hooyadeeda ogaatay wiil iska dhalinyaro oo ciyaalka xaafadu ahay gabadha hooyadeeda ogaatay iyo walaalaheed looma rabin gabadha marka nin iska dhalinyaro waxba aan haysan looma rabin ma fahanteen marka gabadha gurigiya lagu celshay guriga markii lagu celshay gabadhii wiilka waa is waayeen wiilkina guriga ma imaan karo waaba loo diidaba ma fahanteen maalmaha kamida marka dambeeto gabadhii aniga saaxiibtay aadmana leega shakinaynin waa u imaaday markaan u imaaday gabadhii waxaan leeyahay wax dhaweynaya iska dhigay hoos markay ii dejis aboohilo waabay daba socda mogtaa hoos ii taagan dhac oo labadoodii isku keenaya meeshay ku sheekaysanayaan waa la kala tagaa habeen walba saan intuu isoo maro oon soo raaco oon gabadhi u doono oon usoo dejiyo oo gabadha ay sheekaystaan oo haddana marka dambeeto waa lay ogaadaani inaan ninkan gadaal ku jiidooyo ma fahantee inaan ninka jiidooyo waa la ifahmano maamadii maalin dambe waxay dhahday qadra haddaa aragto ninkii asaga ahayna waa uu daba socdaa sidii anigana guriga rooka leega saar tiimiya ti iga bax waa laysoo ceeriyaa maalintii dambeeto waxay dhacday sidii loo ahaay gabadhii wiilka xatooyo guriga maamada markay xoogaa adiga ee dariska ama qaraabsalaan ay aado wiilka gurigu imaanaa abooheelow marka maamada hadday aragto waa bis habeen asagoo qolka ku jiro lee maamada soo gashano markay maamada soo gashay waxaa dhacday abooheelow waa la madooyahay inta la dhaho kursiga aan ku fadhiyo aa loo egyahano dharka cadcad in lagu libistana waa la jeclaa jira shaati cadowad shaatigile laga siibee katabaana laga dhiga dhac katabaanka agtiisuu istaagay wallaahi bilaa sheekadan qiso dhaba waayaan ku dhahay jaceylkii fashilme bis katabaan camal oo iska dhigay meeluu istaagay katabaanka agtiisuu istaagay mogtaa waana dheriya katabaanka markasuu istaagay maamadii waa imaatee xijaabkii lasoo siibatee dalaq waa la suray madaxiisa xijaab camal saas loo surano xijaabka katabaanka camala loo suray sidaas oo aayadho ama maamada marka inta guri iska gagashay xoogaay masquul iyo waxaas iska gagashay abooheelo asag shaatigii hoosuusay loogu soo qariyay kabaha gacanta lee kusoo qaatee kabtee maaragtaa ka dhacday wuu soo cararay sidii xadxadtooya la isku shukaansan jira xadxadtooya wax la isku shukaansada maalmaha kamida gabadhii wiilku wuxuu ku dhahay saanba ku jireyne saaxiibay inaan kusoo doontaan u baahanahay waan kusoo doonanayaa haye waaya ciddii hooyadeeda u imaatay hooy aniga waa laysoo doonanaa inaan gursadaan rabaa wiilkaas maanta waa laydiin socdaa odayaala imaanayo haye sidii odayaala idiin imaanaya dhahda mogta abaaheelaha maamadii inta daris ku maqneed annaga guriga hagaajis u galna dahya garaacow guriga la hagaajinaa la toostoosinaa ma fahanta markaasaa waxaa noo imaatay annagoo shaqadii heenno
maamada noo imaatano markaasay dhahday wariyaada maxaa samaynaysiin gurigaan qurqurxinaynaa beriya ilaa marti imaa rabtaaye daahiyad iyo waxbaan xirxirayna no markaasaa daahiyadi balaaye gabar idiin soo doonato idiin imaad ma ninkaasa iisoo wadin daahiyadi kow waa la jarjara daahiyadi way googoyda maamadi abaaheelaydii wallaahi habeenkaas habeen xasuusta waa kow dhaa abaaheelaydii lasoo doonanayo meeshaani waxaan ku dhahay ciil ilaa ninka waa loo diidan yahay moogta daahiyadii iyo caawdha waxaa sameynaynana waa la jarjara meeshaani hees iska heesino cid male naftaydani hadda ay ku ogolaate waa maanta inaadoo qalantaa ay taagantaa codxumada ay ugu qaatayaa cid male naftaydani hadda ay ku ogolaate waa maanta inaadoo qalan waxay taagantahay cambaradan haddii ani aan ku rabo macnaha nafteeda ee ku ogolaatay wax iga kaa bedeli karo wax laga kaa qaadi karo ma lahan camal no ma fahanteen codxumadana igu qaata caawa iska raalli ahaada marka abaaheele marka dambeeto subaxdii family adii dhex galay gabadhii wiilka ciddii oo gabadha walaalaheeda maamada walaalaheeda oo gabadha abtiyaasheeda maamadii ka qabteen sidii loogu soo doontay arooskoodiyaa dhacay waa la is aroosay gurigaa la degay gabadhii sodogaa lala dejiyey haddana wiilkii gabadha waa isjeceliyi horta wallaahi bilaa qisadan qisa aan caadi ahan waa gadaale laakiin ka macaantaa sheekada ma fahante gabadhii wiilkii waxay la degan yihiin sodogii moogta sodogii wiilku hooyadiis marka way dhimatay sodogii gabar yar uu qabaa oo beebi ah oo cunug yara oo cambaradan ka yarno ma fahante markaasaa cambaradan iyo caligaana dhac habeen ilaahay keen cayaartooda baxeedo subaxi iyadoo la far cayaara oo ordaya la kala carara waa la isku faraxsan yahay maasha allah gabadhii odayga uu qabay wiilkani gabadhaan la hartaa kama seerto big odayga waa ka cararta markay odayga ka carartay waxay samaysay odayga wuxuu yiri gabadhayda aan qabay gabadhaasaaba igu dirtaba dulmileey waa reerkayga inay dumisayna rabtaa oo dhan gabadha odayga waa loo sasaba waa lasoo celshay haddana sidoo kaleeto way carartay haddana waa loo keenay markaasuu yiri cambaradan wiilkayga uu qabo waayo fidnada dhan ayadaana iga dumisay oo reerkaygana iga dumisa rabto oo gabadhaydana igu dirta saas ayadaa taa markay sheekadii waxaa maqlay sodohdii gabadha dhashay maamadiia maqashay yaa celinaaye gabadhayda maubasaas yiriba walaa ulbooca loogu kutubayo maa lalahaa yaa ulbooca loogu kutubayo gabadhii fakatax maamadii waxayba dhahday maba la qabaayaba waa soo rartay alaabteedii ayadaa lasoo raray guriga hooyada lasoo dejiyey maala cadeey yaa wiilkiina waxaa lalahay maba albaabkaba igama soo geli kartid aabbaa intuu eragaas yiri gabadhayda maba ii imaa kartidba wiilka gabadha waa is rabaa mucjiso hadda ka horaa gabar waxaan ka maqlay aan isku xaafada haa jirna allah dadka isjecel yaa xero gooniya inta u sameeyo yaa xero gooniya inta u sameeyo dadka isjecel kusoo xiro ee dadka oo jaceylka kasoo horjeedana ma geli kartiin camal dhaha gabar hadda ka hor ka hayaa ma fahamti marka abooheelo waa loo diiday guriga maamada inuu imaado sidii waxaa loogu dhahay waxay xatooyo maalintuu imaana waa maqasha dariska oo sheegay inuu wiilka guriga yimaado bis markaas waxay dhahday wiilka guriga inuu yimaado waa loo sheegay moogta waardiyaa loo saaray wiilasha eedal dhashaa lagu diray maalintii dambeeto guriga waa loo diiday wiilkii waa uu ka cararay markuu ka cararay banaanadaas la isku banaanadaas waan is qabaan moogta banaanadaas la isku babalansadaa meesha waxaan ku dhaha jaceylkooda cariiri iyo caqabad haddana kow dhahno maalintii dambe sidii wiilka loo raadsanayo oo gabadha ii fur loo dhahay odagii oo wiilka dhalano gabadha iska furuuba taagan yahaba waa ku dhoofina gabadha iska fur meel allaaley meesha arta gabadha waxaa lagu leeyahay waa ku dhoofina iska fur adigana wiilkan haye wiilkii gabadha waa israbaan banaanada iskala raadsanayaan waalidku waa isku dhaaranayaan maalintii dambe waxaa dhacday
aroosay ku kulmeen wiilkii gabadhi oo family ah arooska iyadoo joogto oo wiilkina uu joogo wiilka waalidkiis waa deerayeen horta fur gabadhi waa diidiyey duurgaluu noqday ciyaal jikuro iska noqday maalintii dambeeto aroos uu family u imaaday arooska iyadoo soo joogo oo macawiis wato macawiistii iyadoo la farcayaara dhalinyaro kaleeto macawiista ka jeexmatay baahile arooskay joogtay macawiistii qaaday macawiistii harqaan geysay iyadoo soo tolayso waxaa dhacday maamadii maqasho inuu wiilka arooska joogo arooskana gabadha familkeeda iskale mogta waxaa dhacday wiil yaraa hoos laga diro oo gabadha adeerkeed loo diro shirqool camal gabadhiyo iska fura cidoo iska furaya kula tali laakiin been hoosteeda ka wadata mogta waa imaatay iyadoo macawiistii wado ciyaalka xaafadda waa laisku sheegay hebelow oday hebelow waa lagu maqan yahayo adeeraa lagu doona hayo waaye saas miya ahaa waa oroda fakatax macawiistii iyadoo wadaa la arkay habartii waa iswaashay maamada gabadha dhashay waxaaba la yiri sheekada dhan ba idaaba raali ka ah ilaan gabadha iska furaa la yiri ninkan hayee waalidkeed ku tiro hoosheedana hoosay ka wadato ninka ilaan way jeceshahay bis maalintii dambeetaa waxaa dhacday markaasaa waxaa dhacday wiil yaraa loo diray adeerkii xaafadda dhinac ka deganaa intuu ku maqnay la hoosaaasiye waardiyana waxaa loo fariisiiyey iridda hore markaasaa wiilkii inta cagaha wax ka day kabihiisa gashtay macawiista waa loo keenay ilaa mogta oo cagaha wax ka day oday xaafaddaa bursaday dhac xabad kaloo la socday oo caraba maskiin ayaa lasoo qabta aniga maahi adeer aniga maahi war soo socaa layiri edib ma qabtide wuu keenay adeerkan maa ciyaalkii adeerkan maa maamadaa loo keenay ninkaan maana iska sii daa ninka waa cararaal waa fakaday fakata xoolaa ninka waa fakada mogta adeerkii waa yimid abaaheeleya loo yimid abaaheeleydii qolay dhakab isku siisano sheekadii ilaan wiilka waa baxsada gabadhi inay ka dambeyso waa la arkay maamadii gabadhi meel laga dhigaa la waayey markii dambeeto waa la maslaxay waa la heshiisiiyey wiilkii iyo gabadhii sida ciqaab ugu jireen oo duurka iskaga raadsan jireen markii dambeeto waxaa la lacaan ku siinaynaa noo fur waa diiday markii dambeeto wuu furay gabadhii markuu furay wuu soo bax magaalada dhan uga bax tahriib uu aaday ninkan Ethiopia soo aaday Ethiopia markuu soo aaday xamar waa meesha markii sheekada ka dhaceyso Ethiopia markuu soo aaday abaahile waa ka soo daba carartay fakata maamadii yaa celinayay meeshii waxaa ka dhacday aan ku dhahay habeena duco marna ilaaw ii soo celi marna habaar gabadhii wiilkii markii gabadhii waa soo baxday meelay aaday gabadhii la waayay wiilkiina Ethiopia soo aaday inay isku dhinac soo aadayna loo maleynaa Ethiopia iyo sheekada meesha ka bilaabanayso iyo waxa oo dhici doonto iyo wiilka meesha ku dambeeyay iyo gabadhii meesha ku dambeysay iyo sheekada si u dhici doonto nala soco insha Allah habeenadan qayb idiin soo gelina hadii Ilaahay idmo ama habeen dhaaf say noqoto ayda kugu soo gelina hadaa ka hesheen comment iigu reeba waa soo gudbina sheekadan gadaali ka macaan tahay jaceelkii fashil ma leeyahay ma fahamtay marka haddii aad ka heshay comment ii reeb habeen dhaaf aan soo gelinayaa haddii aadan ka helinna waa ii soo sheegi kartiin commentiga iigu reeba marka fadlan subscribe tayga iloobin like comment share aad u mahadsantihiin qalbi wanaag official bye bye